ururka dhalinyarada ubaxa caasimada ayaa Muqdisho ka bilaabay olole iskaa wax u qabso ah kaasi oo ugu magac dareen 1 milyan oo geed beris ah oo lagu soo celinayo bilicda iyo quruxda magaalada Muqdisho. Ololahaasi oo wadeen 6 bilood ee ugu dambeysay ayaa waxay maanta geed beris ah ka sameeyeen wadada Maka al-Mukarrama gaar ahaan isgoyska dabka. waa kuwan qaar ka mid ah dhalinyarada ku nool magaalada Muqdisho oo ka hadlay ololaha dhalinyarada ubaxa caasimada ay wadaan. wareen magacayga waa Farxiyo Geela Cali anigoo ku faraxsan maanta inaan ubaxa caasimada beero oo u imid meeshan wadada dabka inaan beerno ubaxa caasimada hadaan nahay dhalinyarada caasimada ee Muqdisho gaar ahaan Soomaaliya aad ayaan ugu faraxsanahay inaan ubaxa caasimada beero ma sha Allah wallahi si wacan ayaan u arkaa waana soo dhaweynayaa waa mid kaliya aniga ee farxad gelisay inaan ka soo qayb galo aan ugu diyaar galoobay anigoo ah dadka kamid ah ka imaaday qurbaha oo qurba joogta ah kana maqnay Soomaaliya 13 sano kadibna ku soo laabtay ee aan caashiqa wadankayga inaan ubaxa caasimada ka qayb qaato maantana aan ka qayb qaatay aadna ugu faraxsanahay. bismillaah magacaygu waa Aamin Cabdi Xuseen waxaan ka soo qayb qaaday beerida ubaxa caasimada ma sha Allah aadaan ugu faraxsanahay maanta inaan wax ka beero ubaxa aan ku beero caasimada wili dabka aadaan ugu faraxsanahay mid kaleeto inaan ubaxa caasimada maanta wax ka beero ma sha Allah waa markii ugu horeysay aadaan ugu faraxsanahay waxaan jeclaan lahaa marar badan inaan ka soo qayb galo oo kaleeto. bismillaah magacayga waa Xasan Maxamed Cali oo ku magac dheer Xasan Salwo fikradan ah dhalinyarada yararka ee caasimada ubaxa caasimada ay soo abaabuleen waa fikir maaragtay oo boqolkiiba boqol maaragtay sheeg aad loogu baahnaa magaalada ka maqnaa waa fikir ay dhalinyaro macnaha iskaashatay ay soo uriyeen waana fikir magaalada bilicdeeda wax weyn ka bedelay wallahi aad baan u soo dhaweynayaa maanta aad aan ugu farxay inaan la kulmo inaan wadankayga halgeed u beero jaanis weyn baa ii tahay macnaha maanta waqtiga iyo farxadeeda wax la soo koobi kara maaha boqolkiiba boqol waa dhiiri gelinaya dhalinyaradan. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Shirmaake Maxamuud Jaamac oo kamid ah dhalinyarada ku nool caasimada Muqdisho runtii waxaan aad ugu faraxsanahay barnaamijkan bilowga ah ee muddada badan soo socday runtii oo ay ku fakireen dhalinyaro badan oo is abaabushay ee ku nool caasimadeena Soomaaliya kuwaas oo isku xilqaamay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen quruxda iyo bilicda caasimada Soomaaliya iyagoona noqday inay runtii magaaladan 26 sano burbursanayd inay bilicdeedii iyo quruxdeedii iyo muuqaalkeediiba ay dib u soo celiyaan. xogayaha ururka dhalinyarada ubaxa caasimada Maxamed Tahliil oo ku magac dheer Timoweyne ayaa ka hadlay ololaha ururkooda ay ka sameeyeen maanta wadada Maka al-Mukarrama iyo micnaha 1 milyan oo geed beris ah waxay kaga dhigan tahay. bismillaahir rahmaanir rahiim magacaygu waa Maxamed Tahliil Sheekh Maxamed Ali ku magac dheer Timoweyne waxa maanta noo bilowday ololihii qaybtiisii kale oo iska wax u qabso ubaxa caasimada ubaxa ayaan galabta beeraynaa rinjiga waa noo socdaa asagana ololihii dhinacyo badan oo ka socdaa iska wax u qabso aadaan runtii ugu faraxsanahay dadweynaha jecel inay wadankooda quruxsadaan waxaan ugu baaqaynaa qof kasta wadankiisa asaga la rabaa inuu dhisto oo quruxsado bilicdiisa soo celiyo waxaan ugu baaqaynaa inay naga qayb qaataan barnaamijkan waa inaan u midoobna wadankeena saan quruxsan lahayn oo bilicdiisa u soo celi lahayn aad u mahadsantiin. ururka dhalinyarada ubaxa caasimada ayaa ku hoolanaa inay soo celiyaan bilicda iyo quruxda guud ahaan Muqdisho ay lahayn jirtay.